wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka waday kambeynka faafinta cashuurta iibka ee meheradaha ganacsiga ee barnaamijka GST ayaa shaaciyay gaadhista ganacsatada ee barnaamijkaasi. agaasime ku-xigeenka cashuuraha bariga wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Yuusuf, maamulaha cashuuraha gobolka Togdheer Axmed Geise Cabdilaahi, maamula ku-xigeenka cashuuraha gobolka Togdheer Maxamed Xuseen Cilmi, maamulaha kastamka ahna wakiilka wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer Salebaan Maxamed Maxamuud ayaa ganacsatada gobolka Togdheer uga mahad celiyay siday u soo dhaweeyeen mashruucan laga hirgelinayo gobolka Togdheer. waxaanu halka ku soo gabagabeynay hirgelintii cashuurta GST oo tiimkan uu hogaaminayo agaasimaha ku-xigeenka cashuuraha barigu iyo dhammaanba wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolku ay ku hawlanaayeen 10 cashay u dambeeyay. marka hore waxaan u mahad celinaynaa ganacsadii aanu la kulannay ee kala duwaneyd sida wakaaladaha biyaha, hodheelada hurdada, hodheelada cuntada iyo warshadaha transportationka iyo ceelasha gaar loo leeyahay ee booyadu ka dhaansadaan oo aanu iyadana dhaqso u gaarsiin doono insha Allah bismillaahi kariim. dhammaanba ganacsatada kala duwan sida ay u soo dhaweeyeen cashuurta GST-ga ee dalka gobolka laga hirgelinayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay saaxiibayaal wada shaqayn wanaagsan, aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa sida firfircoonida iyo kalsoonida leh aad noola shaqayseen noolana qaateen cashuurta gobolka in laga hirgeliyo. waxaan fariin halkan uga dirayaa dadweynaha gobolka Togdheer. waxaan leenahay walaalayaal, waxaad ku arki doontaan hodheelada aad ka dukaamaysanaysaan xaysiin fara badan oo ay dhigtay wasaaradda horumarinta maaliyadda oo tilmaamaya shuruucda iyo cashuurta GST idin tilmaamaya. meheradaad ka cuntaynaysaan, ka shaahaynaysaan, hodheelka aad seexanaysaan, adeegyada biyaha iyo laydhka iyo isgaarsiinta, warshadaha, dhammaanba adeegyada iibka ee magaalada laga fulinayo dhammaanba waxaa laydinku dari doonaa waad arki doontaan cashuurta GST oo ah 5% sida ku cad boodhkan dhinacyadeenna yaalla. marka waxaanu idinku wargelinaynaa inaad u bixisaan cashuurta sida ugu habboon idinkoo u fudaydinaya hoteelada iyo shaqaalaha hoteelada ee fulinaya hawshaas oo qaranka uga wakiila. maanta taariikhdu tahay 23 bishii 2024 أنا معمول عشورة بري قبل كتقدر أحمد كيس عبد الله محمد وحنا دوينها قبل كتقدر أنا قبل مدودني عشورة GST قبل كودني 28 مدة 28 وما حد علنا إن دمان كان عصتنا نلاش غيسي هوتيل هذا هوتيل هذا تاعي كو عنتظر هذا تاعي كو ورشدها كو بيها دمان كان عصتنا كاستمر كعشورة بري قادر وما حد علنا إن ما أنت كان تاجرنا هاي نسوق بجويني شقدي وأنا dadkii u mahad celinayno dhammaan ganacsatada dadweynaha ka codsanay in la shaqeeyaan hoteelada hurdada cuntada kasto aan gaarsiinay. bacda salaan maanta oo taariikhdu tahay 23 bishii 2024 oo maanta 2024 waxaanu halkan iskugu keenaynay inaanu kelmad mahadnaqa uga jeedino cashuur bixiyaasha sida fiican cashuurta oo bixiya haday noqoto cashuuraha kala duwan. laakiin maanta waxaan u joognay bariyahan ka shaqeynay waa cashuurta GST-ga. hodheelada sida fiican oo la fuliyay dhammaan gobolka waan uga mahadnaqaynaa sida fiican ay noola qaateen u fuliyeen u hirgeliyeen. waxaan ku boorinaynaa inay saraakiisha cashuuraha ciidan iyo haday noqoto saraakiil kalaba inay la shaqeeyaan oo siday tay ula shaqeeyaan. cashuurtana waa cashuur ku waajibtay qofka customerka maaha cashuur ku waajibtay hodheelka. waxaan aad ugu boorinaynaa qofka macaamilkii inuu ka qaato qaansheegtiisa hodheelka oo u fududeeyo la shaqeynta hodheelka. cashuurahan GST-ga la qaadaa maaha cashuurtan GST-ga hodheelada qura way badan yihiin
waxaa ka mid ah cashuurta warshadaha waxaa ka mid ah cashuurta hodheelada waxaa ka mid ah cashuurta diyaaradaha tigirka diyaaradaha waxaa ka mid ah cashuurta transportationka waxaa ka mid ah cashuurta biyaha way badan yihiin talleerka ka mid ah marka waxaan ku boorinaynaa mid kastay noqoto inay iska bixiyaan cashuur bixiyaashu waxaan waxa weeye wixii wax lagu qabanayay waxa yar contribution ka yar bixinay waxa weeye wixii ay dalkooda ku contribute weeye insha Allah bidnillaahi kariin waana ku soo noqon doontaa insha Allah marka waxaan aad ugu boorinaynaa inay hawlwanada la shaqeeyaan ay kala shaqeeyaan hawsha lagu jiray balaana gobolka ku jirta gobolka laga wado gobolkuna inay sidaa tahay u fuliyaan istooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo soo dhaweeyay cashuurta GST qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer halkan waana soo gaarsiiyeen wasaaradda maaliyadda wayna soo gaarsiiyeen amaamirtii hareena waxa baan la sii qaadanay Saacad Cali Shiro markii hore nagu shiriyay hoteelka Mansoor waxaana ahaydun wixii dalka wax loogu qabanayo GST-da hal hirgeliyo sida hoteelaydu dabeedna haddaan nahay qoladeeda hoteelada waanu aqbalay waanaanu la shaqaynaynaa maaliyadda waanaanu hirgelinaynaa insha Allah dalkeenana wax loogu qabanayo wax qof qaadanaya maaha mahad Soomane warbaahinta qaranka Somaliland Burco.